kulan wanaagsan daawadayaal oo idin soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka waa sabti taariikhdu waxay ku beegan tahay labada bisha koobaad ee January sanadka cusub ee 2021 qodobada saaka wararkan idin hayno ugu waaweyn waxaa kamid ah mucaaradka Soomaaliya oo uu waagu ku bariyay kadib markii ay dawladda federaalka xanibtay lacagihii murashaxiinta mucaaradka uga imaan lahaa dawladaha shisheeye iyo mucaaradka oo wada qorshe halis ku ah dawladda Soomaaliya waxaan idin soo gudbin doonaa dagaalka cusub ee ka dhex qarxay mucaaradka dalka iyo filla Soomaaliya madaxweyne Farmaajo oo la sheegay inuu san doonaynin inuu qabto doorasho dalka ka dhacda haddaba sidee buu xaalku noqon hadii ay doorasho dalka ka dhici weyso warbixin ayaan idinku soo gudbin doonaa wararkeena saaka xog ku saabsan madaxweyne qoorqoor oo sheegay inuu ka tanaasulayo darajada madaxtinimada xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka Jubbaland oo lagu dilay qarax ka dhacay magaalada Kismaayo iyo faahfaahin ka soo baxay qasaaraha ka dhashay qaraxaasi iyo ciidamada dalka Suudaan oo dib u qabsaday dhammaan dhulkii ay ka haysatay dawladda Itoobiya waa hagaag saaxiibayaal inta daawatan xayeen qodobadeena wararka saaka kuwooda ugu waaweyn iminkan ku soo dhawaada subaxnimo oo faahfaahsan haddii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay ee channelkeena YouTube-ka xulashada wararka subscribe saaro si aad u hesho xogaha iyo wararka gaarka ah ee alaab halkan aan soo galino mahadsanidin markale soo dhawaada subax wanaagsan waxaan ku bilaabayaa saakay mucaaradka Soomaaliya waaga ayaa ku bariyay kadib markii ay dawladda federaalka xanibtay lacagihii murashaxiinta mucaaradka uga imaan lahaa dawladaha shisheeye halka mucaaradka qudhoodu ay iyaguna qorsheynayaan qorshe ka dhan ah dawladda federaalka ee Soomaaliya xogo gaar ah uu helay xulashada wararka ayaa waxa ay sheegayaan in markaasi dawladda federaalka ee Soomaaliya dhammaan ay xanibtay ilihii dakhli ee ka imaan lahaa dawladaha iyagu doonaya in ay galaangal ku yeeshaan doorasho dalka ka dhacaysa isla marhaantaana lacagaha badan siin lahaa murashaxiinta waxaana murashaxiinta qaar oo aan la hadalnay dadka agdhow ay sheegeen in dhambaanba la hakiyay lacagihii uga imaan lahaa murashaxiinta mucaaradka ah dawladaha shisheeye si ay ugu taageeraan isla marhaantaana ololahooda doorasho ay qayb uga noqoto lacagahaasi dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isagu dadaal dheer ugu jira sidii uu mar kale kursiga ugu soo laaban lahaa ayaa qorshahan bixiyay waxa uuna markaasi ku amray dhammaan hay'adaha ammaanka iyo sidoo kale bangiga dhexe inay la socdaan dhaqdhaqaaq kasta oo lacag dalka ay ku soo gali karto xogaha aan helnay ayaa waxay intaas ku sii darayaan in bangiga dhexe uu si toos ah ula soconayo bangiyada dalka ka jira isla marhaantaana aysan qaban karin wax lacaga oo u imaanaysa mucaaradka Soomaaliya gaar ahaan lacago aad u fara badan oo ka imaanaya dawladaha Imaaraadka iyo kuwa kale oo markaasi iyagu doonaya inay Soomaaliya doorashadeeda saameyn ku yeeshaan haddii qorshahan uu dhaqan galo dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa suurtagal ah inuu meesha ka baxo hargankii adkaa oo ay mucaaradka dalka kula jireen madaxweynaha Soomaaliya dhinacooda mucaaradka Soomaaliya markay ka warheleen xogtaasi waxa ay bilaabeen qorshe kale oo ay ku heli karaan lacagahaasi iyaga oo qorsheynaya in lacagahi ee kaga imaan lahaa dawladaha shisheeye ay markaasi ku helaan qaab kaash ah iyadoona maalmo ka hor xadka Soomaaliya uu la wadaago dalka Kenya lagu qabtay lacag kaash ahayd oo u socotay mucaaradka isla marhaantaana ka timid dalkaasi Imaaraadka Carabta waxaana qorshahan iyagu wada mucaaradka oo doonaya in marnaba aysan ka baaqan lacagaha ay uga qayb gali lahaayeen doorasho dalka dhacaysa doorashada Soomaaliya sanadkan ka dhacaysa waa mid xasaasi ah iyadoo madaxweyne Farmaajo uu markaasi dagaal adag oo dhinac waliba uu la galay mucaaradka Soomaaliya kuwaas oo iyagu doonaya in ay doorashada kula tartamaan waxa uu hore cunaqabateeno kala duwan u saaray mucaaradka Soomaaliya waxaana haatan muuqanaysa in madaxweyne Farmaajo uu kaga guuleystay mucaaradka qabashada doorashada iyo waliba sidoo kale qaabkay u dhici lahayd waxaana murashaxiinta dad ku sugan oo inala hadlay ay noo sheegeen in haatan uu gabaawsi ka yahay lacagaha ay haystaan mucaaradka Soomaaliya ee murashaxiinta ah maadaama lacagihii u imaan lahaa hakad laga geliyay lamana oga qorshahan halka uu ku dambeyn doono iyo sida ay ololaha ku gali doonaan mucaaradka haddii aysan helin lacaga kale oo meelo kale uga yimaada maadaama dawladda federaalka ee Soomaaliya ay iyadu isku dayayso in dhambaanba ay hakiso lacagaha u imaanaya mucaaradka Soomaaliya si aysan doorashada galaangal xoogan ugu yeelan dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo waxa lagu eedeeyay inuusan doonaynin inuu qabto doorasho dalka ka dhacda haddaba waxaan eegi doonaa sida xaalku uu noqon doono haddii aan la qaban doorasho
aqoon-yahano Soomaaliyeed ayaa waxay sheegayaan in madaxweyne Farmaajo uusan dooneynin in dalka ay ka dhacdo doorasho taas beddelkeedana uu rabo inuu awood ku joogo filla Soomaaliya. aqoon-yahan Cabdiraxmaan Nuur Sheekh Cali waxa uu sheegay in sida ay hadda wax u socdaan aysan ahayn sifo doorasho balse u muuqato mid muddo kororsi aan sharci ahayn. kulay xaaladda uu wadanku ku jiro waad la socotaan waadna aragtaan in madaxda markaasi dalka iyo mucaaradka ay madaxa iskula jiraan. Farmaajo doorasho inuu qabto mar rabo been yaan la isku sheegin ayuu yiri aqoon-yahanku. dhinaca kale aqoon-yahankan ayaa ugu baaqay dhinacyada shirka uga qaybgalaya Garowe inaysan Muqdisho imaan iyagoo aan go'aan markaasi mid ah ka soo qaadan arrimaha doorashooyinka. kulay in dalka fawdo ka dhacdo lama huri doono, laakiinse waxaan ku talin lahaa in siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanada ku sugan Garowe ay soo tashadaan si ninkan jeclaaday kursiga ay meesha uga saaraan. Farmaajo ayaa doonaya in mar kale uu ku soo laabto filla Soomaaliya weliba isagoo raba in doorashada uu boobo sida ay qabaan siyaasiyiinta qaar oo iyagu markaasi si aad ah ugu dhaleeceynaya madaxweynaha qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuusan dooneynin in dalka ay doorasho xor iyo xalaal ka qabsanto. wararkeena kale hadii aynu eegnana madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaa ka tanaasulay darajada madaxweynenimada. madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor oo kamid ah madaxdii ka qayb gashay shirweynaha Garowe ka dhacay ayaa waxa uu markaasi madasha kaga jawaabay su'aal la xiriirtay nidaamka federaalka. Qoorqoor oo ay garab fadhiyaan madaxda Puntland iyo Jubbaland ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in meesha laga saaro oraahda madaxweyne ee loogu yeero madaxda dawlad goboleedyada si meesha uga baxdo madaxweynayaasha badan ee Soomaaliya. aniga waxaan aaminsanahay in laga tanaasulo ereyga madaxweyne iyadoo la dhowrayo sharafta dawladda oo Soomaalida uma qalanto dhowr madaxweyne taasoo wiiqaysa qabkeeni iyo dawladnimadeeni ayuu yiri Qoorqoor. Mr. Qoorqoor ayaa tusaale u soo qaatay safar uu dalka dibadiisa ugu baxay iyadoo madaxdii dalkaasi ay u qaateen in madaxweynaha Soomaaliya uu booqasho ku tagayo taasi oo keentay in uu markaasi wax ka sheego arrintan isla marhaantana uu sidaas ku baaqo. ugu dambeyntii wuxuu carabku ku adkeeyay inaysan Soomaaliya dan ugu jirin madaxweynayaal badan isla markaana loo baahan yahay in arrinkaasi wax laga bedelo iyada oo dib u sixid lagu sameeyo dastuurka dalka. hogaamiyaasha dawlad goboleedyada ee Soomaaliya ayaa iyagu waxa xilligan loogu yeeraa madaxweynayaal taasi oo dad badan su'aal ka keeneen sida madaxweynaha loo dhihi karo qof gobol xukuma inkasta oo uu jeedinayo dastuurka dalka ee isagu ku meel gaarka ah. magaalada Kismaayana waxa ku geeriyooday Allah u naxariistay xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka Jubbaland kadib markii qarax lagula eegtay gaarigiisa. waxaa xalay fiidkii qarax gaari oo lagu soo xiray gaari uu ka dhacay magaalada Kismaayo waxaana lagu dilay qaraxaasi xildhibaan Khaliif Haashim Nuur oo ka tirsanaa xildhibaanada dawlad goboleedka Jubbaland. sida wararkan ku helayno xildhibaanka ayaa gaarigiisa loogu xiray qaraxa nooca gaadiidka hoosta loogu xiro waxa uuna dhacay qaraxaasi xilli uu xildhibaanka ka soo baxay gurigiisa uuna magaalada u socday. madaxweyne ku-xigeenka dawlad goboleedka Jubbaland Mudane Maxamuud Sayid Aadan ayaa ka tacsiyeeyay geerida Allah u naxariistay xildhibaan Khaliif Haashim Nuur waxa uuna amray laamaha ammaanka in ay baaraan qaraxaasi cid ka dambeysay. geesta kale kooxda Al-Shabaab waxa ay sheegatay mas'uuliyadda qaraxan xalay lagu dilay xildhibaan Khaliif Haashim Nuur oo ka tirsanaa baarlamaanka labaad ee dawlad goboleedka Jubbaland. ciidamada ammaanka Jubbaland ayaana xalay baaritaano kala duwan waxay ka sameeyeen magaalada Kismaayo mana jirto ilaa hadda cid ciidamada ammaanka ay u soo xireen qaraxa gaariga loogu soo xiray ee uu ku geeriyooday xildhibaankaasi ka tirsanaa baarlamaanka Jubbaland. ugu dambeyntiina ciidamada Suudaan ayaa dib u qabsaday dhammaan dhulkii ay haysatay ama ay ka haysatay Ethiopia. Suudaan ayaa Khamiistii sheegtay inay si buuxda ula wareegtay gacan ku haynta dhammaan dhulka Suudaan ee ku yaala xuduudda kaasi oo ay deganayeen beeraley Ethiopiana kadib toddobaadyo isku dhacyo ah. Ethiopia ayaa dhankeeda ku eedeysay dariskeeda in ay ciidamo u soo dirtay dhulkan si ay markaasi weerar uga fuliyaan. xiisadan ayaa ka dartay wixii ka dambeeyay markii dagaal uu ka qarxay gobolka Tigreega ee dalkaas Ethiopia taasi oo horseeday in ka badan 50,000 oo qof oo Tigreey ah ay u soo qaxaan Suudaan. Sabtidii Suudaan
ayaa sheegtay inay qabsatay in ka badan ee dhulkan hase yeeshee aysan si buuxda gacanta ugu wada dhigin. si kastaba siyaha wasiirka arrimaha dibadda Suudaan oo shir jaraa'id markaas isagu Khamiistii qabtay ayaa si buuxda u sheegay inay qabsadeen balse Sabtidii hore ay xoogaa dhulka la wareegeen. wadahadal u dhaxeeya labada dal ayaa burburay toddobaadkii tagay. saraakiisha Suudaan ayaa sheegay in Ethiopia aysan si rasmi ah muran uga keenin dhulkan hase yeeshee hadallada saraakiisha Addis Ababa ayaa taasi burinaya. shir jaraa'id oo uu qabtay Talaadadii ayaa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Ethiopia waxa uu ku sheegay in Suudaan ay ciidamo u soo dirtay dhulka Ethiopia hase yeeshee waxa taas ku gacan saaray madaxda golaha madax banaanida Suudaan oo iyagu markaasi sheegay in warkaasi uu yahay waxba kama jiraan. guud ahaan saaxiibayaal wararkii oo saakaad kala socotay channelka xorka intaas ay ku dhan yihiin warar la mid ah inta aynu mar kale dib ugu wada kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.